عليكم ورحمة الله وبركاته ونزل سلام أصحابتك كحرم برتين يوتيوب صومالي بولن انت هورو نوغو حريت سو دوادا انت نوغو عصوب لازم نكون سو دوادا فضلا جنالك سبسكرايب نوصر دا نوغو عصوب تاي مغالك نوشر غراي فيديو غلاق نوصر سيو أصحابتك لو سيجارو ما انتو حندوني انان كهالو مغالكو سابسن بولن يهالكا ايكاقتا يوروب بولن waxay ku taalaa Central Europe bartamaha qaaradda Yurub ku taalaa waxay xuduud la leedahay Jarmalka, Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Ukraine, Belarus iyo Russia. Poland waxay lambarka 7 ugu jirtaa wadamada qaaradda Yurub kuwa ugu waaweyn lambarka 7 ugu jirtaa uguna shacbiga badan. Wadanka caasimadiisu waa Warsaw. luqad waa Polish, lacagtu waa Polish zloty. Warsaw waxaa ku nool 1.7 milyan oo shacabka Poland ka mid ah. intaas waa Poland maxay faa'iido ku leedahay? Poland waxay leedahay faa'iidooyin fara badan. haddaad tahay qof ganacsade ah oo raba inuu investment ku samaysto way leedahay oo ku samaysan kartaa ganacsigaagana weliba si dardar ah ayaa laga yaabaa inuu kugu koro magacna ku samayso. Poland waxay leedahay waxbarasho tayo leh ee lambar 1 ay uga jirto dhammaan qaaradda Yurub. waxbarashada wadankan ka jirto ma ahan waxbarasho wadan kasta oo Yurub ka helaysid. oo waxbarasho ardayga raba inuu waxbarto oo baranayo wixii asagu oo dooqdo oo riyadiisu awal ahayd. waxay kaloo leedahay deegaan. qofkii raba inuu guri ka gato, reerkiisa keensado, ilmihiisa keensado, deegaan leedahay, dhul gadane waa dhisane ama dhul dhisan gadane guri iyo meel uu ku yaalo jaga banaana jaga dhisan gadane seeda. Poland waxyaabaha ay aad ugu macaan tahay waxaa ka mid ah waa wadan aad u qurux badan, dhaqaalihiisu si dardar leh hadda ku socdo soo korayo 10 sano u dambeysay, ku macaan dalxiiska iyo tamashlaynta markii adiga iyo familkaaga ama adiga asxaabtaada u tamashlayn tagtaan. Poland waa wadan shacbiga degan ee wadanka iskale ay yihiin dad aad cunsuriyad ugu yar tahay. waa dad social ah, open minded, maskaxdoodu furan tahay, jecel ajaanibta inay la shaqeeyaan, inay shaqo geeyaan, inay deris la noqdaan, aad u xiiseeya. dadka Boolishka waxyaabaha gaarka u ah leeyihiin waxaa ka mid ah inay yihiin dad deriska dadka aad la tahay oo kaleeto. for example markaa jidka uga hortimaado oo kaleeto lagu salaamo, lagu soo dhaweeyo, lagu tilmaamo haddaad xafiis rabto kaleeto, lagu yani waxa la wixii markaas uga baahato saacido ila wadanka qofka cusub hata qofka markuu wadanka cusub uu ka dhagalayahay laga saacido. wadad aad ugu fiican isdhexgalka bulshada. waana wadan hadda dhow furfurankiisu bilowday oo si xoolo ku socdo jecelna inay la qabsadaan bulshada caalamka meel kasta ay joogaan. wadanka intaas markii laga tago wuxuu kaloo leeyahay waxyaabo fara badan oo kale tuu leeyahay sida caafimaadka oo kale wadamada ugu horreeya ku jira qaaradda Yurub. marka caafimaad tahay oo qof caafimaad u imaanayo kale wadamada ugu horreeya ku jira. dhaqaatiirta iyo waxyaabaha la midka dawooyinkana waa heer 1 number 1 ku jira markii qaaradda loo fiirsho waaye. dadka qaar German iyo Talyaani iyo fiirshan laakiin inta aan ka arkay number 1 ayaga waaye. waxay kaloo leedahay Poland xagga shacabka iyo security-gu aad isugu xiran yihiin oo ma ahan wadan qof shacab iska dhibaateyn karo ama kal raal uu dili karo ama qofka dumarka xijaaban wax la dhihi karo ama lagu xadgudbi karo ma aha. qofka saxadkiisu leeyahay dumarkana ayagoo xijaaban ay shaqeeyaan, ayagoo xijaaban ay xafiisyada joogaan, ayagoo xijaaban ay magaaladooda maraan oo inta badan ay seeran u shaqeeyaan. Poland qofkii raba inuu barto intaas ayaan kusoo koobayaa inuu yahay wadan ku yaala Central Europe, intaasoo dal xuduud la leh, waxbarashadiisa iyo deegaankiisa, ganacsigiisa intuba ay furan yihiin, caafimaadka soo kale uga faa'iideysan karto, dalxiiska uga faa'iideysan karto. intaan muuqaalkan muuqaal ku xiga ku kulmi doono waa anagoo isku duubano idin leh nabadgeliyo.